Assalamu alaikum. Soo dhawaada class-keen English-ka ah. Maanta waxaynu baranaynaa present simple. Present simple wuxuu magaceedu inoo sheegayaa inay tahay mid wax present oo simple oo iska dhacaya, laakiin runtii waxay wadataa la yiraahdaa magac beena marka la dhexgeliyo ama la faahfaahinayo. Taniskani waa badan yahay siyaabaha loo isticmaalaa. To be verb you to be verb to be calaamada waxaynu isticmaalanaa waa affirmative tana waa negative avantana waa question. Subject esta waxaa loo soo gaabiyey subject am is are oo ah verb to be plus predicate iyo predicate-ku waxaa la yiraahdaa waa qayb ka mid ah sentence-ka ama jumladda oo ku jiro ficil kaasoo wax ka sheegaya subject-ga mawduuca laga hadlayo. Verb waa subject iyo verb iyo object. Markuu yahay verb iskaya, markuu verb to be yahayna waa sidan, markuu negative yahay waa s subject, am is are waa verb to be, not bay lagu darayaa plus predicate waxaan raacinay predicate-kii. markuu verb yahayna waa s ama subject dash not plus verb plus object ayaa lagu darayaa. Am marka su-aalada ay tahayna waa am is are verb to be plus subject waxaana lagu darayaa la soo horreysiinaya subject-gii, predicate-kiina waa ugu dambeeyaa. haddaynu qaadano tusaalayaal, usage waa isticmaalka, examples waa tusaalayaashii, express general truth waxaa lagu sheegaa maxaan dhahdaa ayay waxyaabaha generalka ee runta ee dhaca mar walba la isla yaqaano, sida the sun waanu isla garanaa qoraxdii rises in the east waa wax runa oo la isla ogyahay inay kasoo baxdo bariga. Habit iyo obiyada, I play badminton every Tuesday waxaad habis u dharsamaysa mar walba hubdi leedahay. I play badminton every Tuesday kasta waxaan ciyaaraa badminton baashan ilaa tennis lagu dul ciyaaro. Future timetables wax kaloo loo isticmaalaa waqtiyada future-ka. Our train jadwalka our train-ka yagu leaves at wuxuu baxaa at 9 am wuxuu baxaa 9:00 subaxnimo ayuu baxaa train-ka yagu. Future after when until wax kaloo loo isticmaalaa future-ka oo ah after when iyo until, marka iyo ilaa. I will not go out dibadda uma bixi doono until ilaa it stops raining, until ilaa ay ka istaagayo roobku. Stops raining macnaa roob baa da-aya, roobkaas ilaa uu istaago ma baxayo ayuuna leeyahay shakhsigan.
pertinent situations. Pertinent situations waxyaabada joogtada. He works in a bank. xaaladaha joogtada. He works in a bank. wuxuu ka shaqeeyaa bank. For newspaper headlines. waxaa kaloo loo isticmaalaa wararka madaxdiisa ama ciwaanka madaxda warka madaxdiisa xafwan Soomaaliga lagu dhaho. Man enters space. nin ayaa galay space-ka hawada sare with non-progressive iyo wixii progressive hayn ama continuous hayn. I believe that you are innocent. waxaan rumaysanahay inaad tahay bilaa dembi. When telling stories, marka laga hadlayo, marka sheekooyinka la sheegayo, suddenly the window opens and masked man enters. Suddenly the window opens. si lama filaan ayay daaqadii u furantay. And a masked man enters. waxaa soo galay nin maskareeto xidhan madax duuban. For giving directions and instructions. wax kaloo loo isticmaalaa in lagu bixiyo jihooyinka lagu tilmaamo iyo in lagu instructions in lagu bixiyo tusaalayaal. For example, for all. First of all, ugu horeyn you break the eggs. kala jebi adigu ukunta beedka and whiskey with sugar. dabadeedna ku dar whiskey iyo sugar. whiskey waa khamri sugar